الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان السلام هيا ومد مسلم كاه ومانتي إلهي كبرييسه عذرك أهلك وضلك لغا شيغي إلهي إنو نغا نبد قليو ومد الصوماليات بان إلهي كبريا هيا وحان ومدك السلام هيا ما أنا ما مودهيني قاشدا كبحبان قنتيغا أحرتي ما هدان قالي جيرشكيدي عذر كاسان كقاشامنيني إيه حبط دنبا الصوماليا إنay soo dhacdo ma malaynahayn dagaal baa wuxuu ka dhacay saakay meel la yiraahdo furunti foore oo magaalada qorf la yiraahdo 8 kiiloomitir koonfurta ka soo xigta oo xuduudda Itoobiya ah baa ka dhacay waxaa isugu yimid laba mahiigaan oo culus baa isugu yimid qalab aruursigooda iyo waxa meesha ka muuqdana dawladdan Soomaaliya ama gobolkan galguduud oo maanta aanu lahayn kursiga lagu wada fariisanayaa wixii tagay tiigsimaad male ee hadda tale ila gudboon tahay aanu lahayn ana dadka halka deganuna aanu lahayn guryahoodii bay ku soo noqon kallisoor bay ku soo noqon cadaaday wax ka degi dawladooday wax ka caleen saaran dadkii la lahaa oo waqtigii USC sanadkaas oo 30 sano ahaa sidii looga saaray xuduudda Soomaaliya maantay madaxweynihii hore oo Cabdikariin hadduu soo celin waayay madaxweynihii xeef hadduu soo celin waayay maanta ina qorqor baa soo celinaya oo reer cadaadooda baan maleynaynay laysugula tegin dagaalkii baa meeshaas laysku laayay haddana waa iskordhooban yihiin wax dhexdoodii taagan iyo wax ku soo baxayna lama arko ayagoo waxaan leenahay war dagaalka joojiya waxaan nahay micraashkiiyo kuwii mawlac wada yeeshay waxaan nahay mataanaha gacmahoo meel ku wada yaal waxaan nahay walaalo isku mida oo aan kala maarmin war dagaalka maalin walbaba lagu leynahayo wiilashii ha la joojiyo reer cadaadow joojiya kuwaan Itoobiya ku jirowna joojiya ummadda galguduudeedna waxaan ugu baaqahayaa inama caaway wixii maanta dhacay dhinte wixii dhaawacana waa yaalin waqtigii hore dayuuradaha la saari jiray oo dhul baa loo dhigi jiray maanta waa dhaawac meeshiisa inuu ku wada qurmaa waxaa leeyahay dawladdu ha kala dhex gasho caawa ciidamadu dhexdooda istaageen wixii dulmi wadana markaas ha arkeen baan anigoo Cali Xaaji Axmed ku baaqayaa ilama reer caabuwaaq idaacooyinka alaaba ma soo galaan ilaahay bay tawagalaan wixii hadda ka dhacay qoraxsinka wanaag iyo nabad baa lagu dhameeyay waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya oo galguduud waa soo gaari kartaa wax yar bay u jirtaa caawa dhexdooda ha istaageen caawa dhexdooda ha istaageen waa labada balcad kan shishe baa ciidana jooga ciidana dhanka kale ka soo jeeda dhexdooda waagu ha ugu bariyo ha kala jafeen annaga hana dalbeen odayaashayadu waa baxaynaa kuwaasaan u tagaynaa gadaal baan isugu riixaynaa kuwaana halkaana wada hadal ka bilowdo baan ummadda ugu baaqaynaa haddii aan nahay reer caabud waa odayaashii joogay haatan oday kale aan u dhiibahay samuudo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah Xuseen Faarax Maxamed anigoo ah waxaan leeyahay ilaahay ha laga yaabo waxa dagaalka wada dagaalka ay joojiyeen dagaal nin baa ku dhintay nin kuma dhasho dadku waa dad walaalaa waa dad darise
waa dad isla dhashay waa dad isdhalay wiil iyo sodogii nin iyo seedigii wiil iyo abtigii wiil iyo adeerkii intaas baa dadku ku siman yahay waa dad dirisa oo darismo iyo ood isku xige anigoo ku hadlaya magaca cumar dheer anoo ku hadlaya waxaan leeyahay hala joojiyo dagaalkaa hala joojiyo wax la kala helaya male faa'iido darro lama rabo aakhira la'aan lama rabo waxaanu leenahay dagaalkaas hala joojiyo shacabka reer cadaadood ah sidaasaan leenahay dowladdana waxaan leenahay dowladdu dhib waa laga hortagaa balaayo san la qabtay leedahay san in la qabto male waxa dhac dambe oo dhacayay jirin dadkaa ha la kala dhex galo anigoo hadalka ma badinaya intaasaan leeyahay anigoo ah beesha reer cumar